ilaahayow aan leeyahay markoo iga dego mar labaad markoo iga soo laabto aniga meelaan jid aheenaan jidka raadiyaa aan isdhaho maanta ninkaan rigaaga waaye ka tuumoy ilaahay makuu dirnaadee iska qaabil markaan dhaho waxaan noqonaa qof toorey lagu mudooyo sababtaan muuqaalkan u soo qaatay waxa weeye waxaynu nahay ummad meel kasta ka burburtay dhaqankii ka burburtay diintii ka burburtay akhlaaqdii ka burburtay hooyadan Soomaaliyeed ayadoo ciyaal yar yar ah oo ciisa dhabta ku hayda qaarna ag fadhiyaan ayay waxay ku hadlaysaa wax ka baxsan sharciga bini'aadanka in carruur looga ag hadlo xitaa kuwa gaalada ah ee aan akhlaaqda iyo adaabta midna lahayn ciyaalka wixii ka mamnuuceen waxyaalaha nuucaan oo kala in looga ag hadlo annaga oo dad muslimiin ah oo akhlaaq iyo xishood iyo adaab ilaahayna siiyey dhaqankanaga Soomaaligaana uu nafarayo inaan waxyaalaha nuucaan oo kala inaan bulsho la horkeenin waan ugu garaabayaa waxyaalaha ay sheegayso laakiin aqliyan iyo diin ahaan iyo dhaqan ahaan midna macquul maahan dad Soomaaliyeed oo intaas oo milyan inta soo hor fariisatid inaad waxyaalaha nuucaan oo kala u sheegtid sidaynu ognahay gudniinkan ay sheegayso ummadda Soomaaliyeed waqti aad u dheer bay isticmaalaysay intaas oo milyan oo gabdhood oo Soomaaliyeed ayaa dhibka la qabta oo hooyooyin Soomaaliyeed iyo gabdho Soomaaliyeed oo tiro badan ay kula qabaan laakiin la suuliyay oo maanta aan jirin weeyaan inaad wixii markii dadkii la soo hor istaagtid iyadoo ciyaal yar ku ag fadhiyaan dad Soomaaliyeed ku daawanayaan aad xaajigaadii ka hadashid oo aad gogashaadii ka hadashid oo aad dad Soomaaliyeed intaad soo horfartid waxyaalaha noocaas aad ka hor sheegtid sharaf iyo karaamo maahan dhaqan Soomaaliyeed maahan diin maahan waxyaalahaas oo dhan waxa fududaynaya dawlad la'aanta annagu waxaynu nahay dad meel kasta ka burburay sharci celiya ma jiro dastuur noo qoran oo qofkii qaldama lagu qaadaya ma jiro wadankanaga wax ka mamnuuca iyo waxaan ka mamnuuc ahayn ma jiraan waxaa kamid ah waxyaalaha dawlad la'aantu noo keentay furiinkan degdega wiil baa gabar wuxuu qabayaa 2 bilood wuu furayaa ku kale guursanaysaa 3 bilood buu qabayaa wuu furayaa ku kale guursanaysaa gabadhiisa bay u wareegaysaa waxaad arkaysaa gabar soo guursatay 10 nin waxaad soo arkaysaa nin soo guursaday 20 gabdhood sharci kala xakameynaya waxaas oo dhan ma jiro adduunka meel kasta oo tagtid gabadha hadii nin soo furo nin kale ma guursado way adag tahay ninka qaba hadii uu furo gabadha inuu nin kale si degdeg u guursado annaga macaada alle shalay iyadoo la soo furay oo cudada dhamaysan ayaa nin kale guursanaya gabadhii ka cabsan mayso in la guurso waayo sharci dawladeed ka cabsan mayso wiilkii sidaas leeg sharci dawladeed ka cabsan maayo adduunka meel kasto tagtid furiinku kama sahlana haday noqoto wadan muslim iyo haday noqoto wadan gaaleedba waxaa hor yaala sharuudo aad u tiro badan si degdega oo fudud sida Soomaalida kale ta gabadha loo furo nin kale uma guursan karto wadamada gaalada hadii aad ku wareegtid waxa adag gabar la soo furay si degdeg in lagu guursado ayagoo meel badan ka fiirinaya asagoo ninkii ku dhahaya anigoo arkaya gabar fireesha oo qofna soo guursan oo dhunu iga soo horeyn hagee geeraya naag la soo furay qodob kale asagoo adeegsanayo ah wixii lagu soo furay ay qabta annagu haddaynu Soomaali nahay waxyaalahaas oo dhan ma fiirino gabadha hadda la soo furaa hadda la guursanaa sidoo kale wiilka qodobo celinaya jira wadamada gaalada oo kale hadii wiilku gabadha oo furo xaquuq aad u tiro badan bay ku yeelanaysaa haduu ilma ka dhalana ka sii daran wiilkii marka asaguna wuxuu ka cabsanayaa xuquuqda tirada badan haduu shaqeeyo lacagta uu shaqeynayo kala barkeed waxa yeelanaysa islaanta yeelanaysa asaguna sidaas uu ka cabsanaya ayaduna waxay ka cabsanaysaa in la guurso waay dadkaas marka way isku tulan yihiin wixii marka xanaaqa ama dhibaato oo ku kala tagi oo dhaxmara inay ka wada hadlaan oo ka wada xaajoodaan oo ka heshiiyaan ayaa u furan laakiin Soomaaliya hadana wariya warqadeeda warqadaada miyaad u baahantay baba xagga ka baxaysa laba luuq ka baxay shalay mid la hadlaysaba hoo ka guursanaya dhalinyarada waxaan kula dardaarmayaa qaasatan wiilasha gabdhaha furaya oo ayagu dalqadii gacanta ku haya war gabadhan hadii aad furtid mid garoob ha guursan war adigu arki kara gabar ha guursan garoob nin kala soo furay adiguna gabaray adigoo ninkaada haysa kara walaalay ha ka tagin oo mid kale cusub siyaa aadin ninkaada ku ekaaw iska iimaanso marka hore guursanaysidna si fudud ku guursan meelo badan ka fiirisaadna u kala tagin adiga laftirkaadu maalin kasta inaad saan u wareegtido 200 nin oo kala kaan aad aragtid oo laba bahal oo kala nuuca intaas oo bahal oo kala nuuca aad indhaada soo saartid in dabaqbaqay ku ridayaan mustaqbal beel bay ku ridayaan ilmaha ay u diran yihiin kan cunug baad u dhalay kan cunug baad u dhalay kan cunug baad u dhalay ilmaha isku qabiil maahan biri ayaga isweeranaya haday rabaan wiilashana waxaan leeyahay
war adduunka qofku asagoo mara cusub u jeeda mara duuga oo sikinhaana ma gatee intaad garoob guursa lahayd gabar guurso haddii aad guursatidna walaalow ilaahay ka cabso ha furin qab iimaanso waddanka waa in shuruuc la helaa guurka xakamaynaysa dhalinyaradu waa dhiban yihiin wallaahi bilaahi utallaahi gabar waxaan aqaanaa 1 sano gudaheed 4 nin soo fureen wallaahina nabeen kuu sheegin waxyaalaha maanta inaan ka hadlo igu kalifay ka mid dowladdanadu inkastoo san tabar lahayn waxaan ka codsan lahaa waa inay xeerar guurka ka soo saarto ciqaabaya wiilka gabadha fura ciqaabaya gabadha la soo furay oo dadkan inay wada noolaadaan markii horeba iyaga isdoortay isfahmaan qasab wax qodob uga dhigaya waa in dowladda federaalka soo saarto aad iyo aad baad mahadsantihiin Soomaaliland ha waarto waxaan waa wacyigelin muuqaalkan hadduu ku soo gaaro waxaan ka codsanayaa shafrada calaamadda saartid